Assalamu alaikum. Soo dhawaada saaxiibayaal. Conversation between boy and girl. Wada sheekaysi u dhexeeya gabar iyo wiil. Gabadhii baa bilaabaysa hadalka waxay leedahay, How do you see sidaad u aragtaa my pretty quruxdayda? You countryside boy. Wiilkaagan reer baadiyaha ah. Ereyga countryside waa meel magaalada ka baxsan baa waxaa la yiraahdaa countryside. Wiilkiiba wuxuu leeyahay, If I try haddii aan isku dayo to tell you inaan kuu sheego how you look like sida aad u muuqato, you will never believe marnaba ma aamini doontid because maxaa yeelay you look like waxaad u muuqataa what you are not believe waxaadan aaminaynin that you are in aad tahay. Gabadhi baa waxay leedahay, I don't surprise you kulama yaabayo because maxaa yeelay I know waan garanayaa where are you originally come from halkii aad asalkaagii ka timid. Originally waa asal. And I look like a goat ma waxaan u muuqdaa ari, camel, geel or chicken mise dooro. Because maxaa yeelay the animals xayawaanada ayaa now garanaya each other midba midka kale. Xayawaanadu iyaga is garanayee ma ari iyo geel iyo dooro baan u ekahay bay ku leedahay. Weli hadalka idoo sii wadatay waxay leedahay, and you from waxaadna ka timid animal place goob xayawaano which we know countryside taasoo aan u naqaano baadiyaha. Wiilkiiba intuu qoslo wuxuu leeyahay, Do you know countryside ma garanaysaa baadiyaha? Everybody cid waliba knows waa uu og yahay his original place goobtii asalkiisa ahayd. And I am surprising waxaana la yaabanahay how you know sida aad u taqaano the animals xayawaanada which your family had there waasoo familkaagu uu halkaa ku lahaa. So listen sidaa darteed dhegayso this proverb mahmahadan dhegayso. Wearing fashion dress inaad xirato dhar fashion ah cannot be a wise girl kuma noqon kartid gabar caqli leh. So sidaa darteed goodbye maca salaama.